jinayna gudoomiyaha degmada duqa magaalada caasimadda geelaas waxaa bixiyay beelaha sade oo degan degmada Dhuusamareeb caasimadda geelaas waa 6 geel ah marka geeli badnaa oo beelaha sade Cabudwaaqna waa ka soo socdaa Balanbal waa ka soo socdaa meel walba ka imaanaya laakiin se kan waxa bixiyay dadka degan degmada Dhuusamareeb gudoomiye ku soo dhawow nagala wareeg adiga iyo maamulkaaga nagala wareega daan odayaalnahay dadka degan halkan sida odayga hore u sheegay degmada Dhuusamareeb ayaa waxay wareejiyeen geelaas 6 neef ah ayada oo uusan reebaynin dadka maqan oo sida hadda dhabad iyo Balanbal iyo Cabudwaaq iyo waxa ka imaan doona ayaduusan mancinaynin geelaas sidaas weeye waxaan maqlay hadda ka hor Soomaalida dad hore oo xeebaheena yimid waagi hore oo Soomaaliya ay xoolo dhaqatada ahayd magacan Soomaaliya markuu baxayay baa inta loo yimid oo la marti galay bay waxay dhaheen baa leeyahay weelashayada qaato xoolaha Soomaala magaca Soomaali la yiraahdo odayaashii hore waxaan ka soo gaaray Soomaali inuu ku baxay marka wali hadda way socotaa martigelintii iyo Soomaal cid kastaana lagu leeyahay cid kastaana ka qayb gali karta cidii hore uga qayb gashayna waa u mahad celinaynaa tii dib uga soo qayb gashana waa u mahad celinaynaa geelaas waxaan ku wareejinay gudoomiyaha iyo maamulkiisa degmada sida odayga horeyba u sheegay waa mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh sida odayaashiiba u sheegeen geelaas 6 ah baan wareejinay waxaan ku wareejinay maamulka gobolka caasimadda Galmudug barasaabka baan ku wareejinay ama gudoomiyaha gobolka waxaan ugu talagalnay geelaas martiqaadka dadka wufuudda oo isugu imaanaya gobolka in maartay martiqaadkaas ay ka mid noqoto waxaan wareejiyay dadka gobolka degan Dhuusamareeb oo beesha sade ka soo jeeda baa wareejiyay sidaasaan ku wareejinay waxaan ku wareejinay gudoomiyaha waxaan gudoonnay oo aan qibloonnay oo u qabanay martida weyn oo joogta caasimadda annagoo matalayna maamulka Galmudug deeqdan runtii aad iyo aad una qiimaha badan una ballaaran oo galabtana lagu wareejiyay oo ay keeneen xibnaha ka jooga beesha sida halkan ayagoo matalaya beesha sida dadka ka jooga magaalada caasimadda dadka degan runtii sharaf ayay noo tahay maanta inaanu meel weyn ay marayso arintii heshiiska iyo shirka halkan ka socday shirkaas saad ogsoontiin hadda wuxuu marayaa maalinkii 8aad ayaan maraynaa waxaa joogay madaxweyne maamul goboleedyadii waxaa daraad haddana yimid ra'iisul wasaarihii qaranka waxaan sugaynaa maalmaha soo socda in madaxweynihii qaranka uu yimaado oo hadda ay leeladiisii degtay hadeertaan saacadihii hadda la soo dhaafay sidoo kale waxaan sugaynaa qof kasta oo mas'uuliyiinta ay tahay gudoomiyaha baarlamaanka iyo ay tahay xubnaha kale oo muhiimka ah oo maaragtay hadda dhiman inay caasimadda soo gaaraan maalmaha soo socda taasoo la gaari doono insha Allah aan ka rajaynayno in heshiis taariikhi iyo Dhuusamareeb lagu gaari doono oo Soomaaliya ay doonto go'aan laga gaari doono arrimaha hadda maaragtay xoogaa wali alla maaragtay oo khilaaf ka jiro oo ku saabsan doorashada qaabkay u dhacayso insha Allah runtii geelani waa geeli afraad oo aan qibloonayno waxaa noo soo hormaray oo geel noo keenay beesha Cayr ayagoo macnaha marna Gurceel nooga keenay marna halkan Dhuusamareeb qayb joogna inuu wareejiyeen waxa iyaguna geel bixiyay beesha Sacad qaybta ka degan magaalada caasimadda waxa ku xigay oo geel saddexaad noo keenay beesha Maxamuud Hiraab ama Saduduble oo halkan ayaguna geel lagu gudoonsiiyay galabta waxaan geel ka gudoomaynaa geeli afraad beesha sida rag halkan ka jooga waxay kala noo yaboohan runtii oo maaragtay geel waxa la yiri shafka ku fariistaa ragna shinsiye waxaan sheesanaynaa in geeliyow kala badan ay Cabudwaaq iyo Balanbal iyo dhabad iyo carab badan ka soo socdaan marka sidoo kale rijooyin badan iyo geeliyow badan in la soo socdaan waa nala wada sheegayaa aad iyo aad ayaa maaragtay uga mahad celinaya cidii kastoo hawro wax u dhiibtay waxaan ka mahad celinayaa cidda wax noo soo wada waxaan rabaa inaan maaragtay
booriyo nabadda iyo heshiiska waxaan rabaa inaan mar kale ballan qaado haddii ilaahay yidhaahdo intii caasimadda la fadhiyo wixii maaragtay lagu meeshaas dadka jooga ay u baahan yihiin oo bini'aadan aw karoo dhan annagaa diyaar la ah waxaan codsanaynaa in heshiis taariikhiga Soomaaliya uu ah lagu gaaro caasimadda aad iyo aadna intii hawshaas naga gacan siiday iyo ciddii nagu casumtay oo nagu sharaftay inay ka soo qayb gasho shirkana waan macnaha shirkaasna waa u mahad celinaynaa waana mahadsantihiin wassalaamu calaykum